بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامج كني أي نخوه مني صحابيات كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام كارهانا هوانكي وقت هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام والله ما أنتوا حنسوق عندنا صحابيات دي لبعض وقبل الله يلاحظوا صفية بنت عبد المطلب إددي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما عيضوا لما يستري وحلورن شري صفية بنت عبد المطلب الهاشمية وحيا هيد القريشات waxay ahayd nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam edadii oo abihi abdullaahi ay walaalahaayeen safiya waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee muslina ee gaal u dishay iyada oo diinta alle difaacaysa waxay kamid ahayd haweenkii ugu horeeyay ee diinta alle rumeeyay safiya waxay ahayd gabadh nasaba ka soo jeeda oo dhinaca adeegtaba dad xula ay ka beerantay aabaheed waxa uu ahaa abdul muttalib bint hashim abdul muttalib الله نحرسته وحوها أوجي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقاميه قريش يسيد كودي أيداع جرين صفيه يدينا وحيا عيد حالة بنت وهب ويورا راهين نبي هو يدي آمنة بنت وهب عليه الصلاة والسلام نك يديه الرئي صفيه جورستي وحوها حارث بن حربي ويورا راهين أبي سفيان ابن حربي وها وقاميه غير بن أمية ninkaasina Allah naxariistay uu ka dhintay markii ninkeedii dhintay ninkii labaad ay guursatay wuxuu ahaa al-Awwam ibn Khuwaylid way walaalahayn sayyidatul Khadija bint Khuwaylid oo ahayd hablihii Quraysh dadkii hogaamin jiray waqtigii jaahiliga ahaydna hooyadii ugu horeysay ee muslimiinta iyo xaasi nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam Safiya waxay u dhashay oo inankeedii ahaa Zubayr bin Awam ay dhashay وكمل هذا ذكي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجود الدواء سفيان كذي العواب ابن خويلد أيا جريودي وحنا كتجي وكدنتي المير أولورنشري زبير ابن عوام المهي رأي زبير أي نلا أذك كوكوريسي صفية أو ظروف أذك أي كلا دبالتي وحينا كبر باريسي فرد فول مو يدقال عيارتي سنة وحي كدقتي إنه ليبكا يقاصد كعيارو waxayna isku dayday in gebi ahaanba waa cabsi la yiraahdo ka saarto markii nabiga kaleey salaatu wasalaam la soo diray ee diinta xaqqa uu la yimid hanuunka misana waxa qofkii bishaareynay ee digay ee la amray inuu dacwada ka bilaabo qaraabadiisa reer bani abdul muttalib dumarkooda ragooda caruur iyo cirooba nabigu la hadlay wuxuuna yiri safiya bint abdul muttalib fatima bint muhammadey أولادي المعبد المطلبين أنيقو الله أكتيسا وحبايدين كتري معيو إنت أسكدب الله ويرميين ديدنا إياقون ويقاتين وحنا كل ضالي وكل يريقلي إن الرميان وفرينتا قارسيان اتكستا حتى ومركو دادكي وضياري دادكي وحيون نقضين كوا أقبلي ويالي يفتينك حاجة لكي يكودي دي يفتينك صفية waxay kamid ahayd dadkii ugu horeeyay ee rumeeyay sida tooska ah oo qaatay diinta islaamka intaas kadib Safiya waxay kulansatay dhinacyadii sharafta marka hore nasab kaamil ay ka soo jeeday imikana waxa ugu biiray sharaftii islaamka Safiya iyo inankeedii Zubayr diinta ay qaateen waxayna muslimiinta ka kaalmaysay dhibaatadii Quraysh soo gaarsiin jirtay diinta iyo xadgudubyadii hore markii alla nabiga iyo muslimiinta rumaysay oo ogolaaday inay hijroon karaan Madiina tagaana sayyidadan Safiya xasuus bay qaaday aad bay xasuusanaysay Makka markay ka imaneysay waxayna wajigeedu u jeedisay dhinacii ay u socotay ee Madiina alla dartii iyo rasuulkiisa ay hijroonaysay marka laga yimaado sayyidadani inay da'deedu ay ahayd da'ad u balaaran oo Ilaahay u siiyay waxa lagu sheeday 6 sano inay gaadhay 6 ka sanana diinta Allah in badan u gargaarasay Safiya garoomadii jihaarka door aad u weyn oo wax ku oolahay ka qaadatay oo taariikhdu xustay hadaba maalinta adkaa ee jihaadka lagu jiray kaalinta ay Safiya kaga jirtay laba dhacdo oo waaweyn aynu soo qaadan doonaa labada dhacdo barnaamijka kan xiga aynu ku soo qaadan doonaa wad maasantiin